maamulkii markaas Mareykanka ee Bush madaxdu wuxuu go'aansaday inuu Afghanistan dib u galo oo ururkii Al-Qaacida iyo Taliban-ba oo isla xaqo oo labadaba isla dumiyo marka waxaan dhigi karnaa Afghanistan laba dagaal markaas waxaa bilowday dagaalkii ka dhanka ahaa kooxaha islaamiyiinta ee hubeysan oo ay hormood markaas u ahayd Al-Qaacida iyo wixii la halmaala iyo wixii ayada markii dambe ka farcamay ama wixii ayada ku abtirsaday oo dunida islaamka ka hana qaaday Al-Qaacida nafteeda waxay ku sameysantay Osama bin Laden hogaamiyahooda ahaa wuxuu kamid ahaa dadkii mujaahidiinta ka dagaalamayay Afghanistan ka dagaalamay kamid ah oo taageerada Mareykanka helayay Mareykanka tababaray Osama bin Laden si ay tababartay oo waxa loo tababaray laakiin inuu la dagaalo Sofiyeedkii markii kumanaan kun oo dhalinyaro oo Carbeed oo Islaam ah oo wadamadooda ka tagay ee Afghanistan tageen oo ay tababarteen oo dawladii Najibullah hogaaminayay ay rideen oo ay Sofiyeedkii jabiyeen Mareykanka iyo dawladihii kale ee ayaga taageeray waxay isweydiiyeen nimankan see la yeelaa nimankan oo kumanaanka kun ah oo tababaran haddii wadamadoodii ku noqdaan waxay afgambinayaan dawladihii ay ka yimaadeen see la yeelayaa waxaa la yiri hala takooro horta waxaa go'aan la soo saaray dawladihii ay ka yimaadeen inay u diidaan jinsiyadaha ay kala laabtaan kulligood waa kala laabteen wadan kasta waxa la wixii ka aaday Afghanistan jinsiyadihii kala laabtay ma ku noqon karaan dalalkoodii la yiri hana laga takhaluso sidii kale looga takhalusi karo alla cuna qabateeyo nolosha lagu cariiriyo safarka loo diido saasa lagu heshiiyay ayagana markaas ayadoo taas ka fal celinayo waxay go'aansadeen inay maslaxada Mareykanka meesha ku arkaan ay la diriraan oo ayagii Mareykanka ayaa dagaalkii dhexdooda ka bilowday ilaa 11 September ay sameeyeen 98 diina ay Tanzania bariga Afrika ay ka sameeyeen ogeedeen Tanzania iyo Kenya waxay intaas target gareynayeen ama hadaf u ahaa maslaxada Mareykanka waa ogtii markabkii dagaalka Yemen sidoo kale weerar dhowr ka geysteen Sacuudiga dhexdiisa oo dadka Mareykanka expatriate-ka ama dadka ciidanka Mareykanka jooga dhulkaas degan xeriyahooda ay weerareen marka ayagii Mareykanka loo kala baxay marka waxay noqotay dagaal u dhaxeeya labadooda mar rab inaan taariikhdaas ku dheeraado laakiin 20 sano ka bacdi Mareykanka wuxuu ka gurtay Afghanistan muxuu uga gurtay su'aasha meesha taalo taas waaye oo anagana saameynta nagu leh muxuu uga gurtay Mareykanka wuxuu uga gurtay koow laba arrin u sabab ah midda koowaad waa daal laga daalay dadkii Afgaaniyiinta ahay siyaasadda dadka hogaamiyay waliba Mareykanka in ka badan 2 trilyan oo lacagtiisa oo yama lacag galbeed ka timid oo geliyay Afghanistan 135 kun oo ciidan 135 kun oo ciidanna waa u sameeyay oo sida ugu fiican ciidan hadda jira wadamada middle size-ka ah u hubeysan loo hubeeyay waxa kale oo ka shaqeynaysay 100 kun oo civilian ah oo reer galbeed oo Mareykan u badan yihiin oo qaybaha kala duwan ee dawladnimada ka shaqeynaysa joogtay mara waxaa jooga 120 kun oo ciidan oo galbeedka ka yimid maxaa marka keenay inay ka baxaan Mareykanka waxa keenay waxa laga daalay hogaankii siyaasadeed ee Afghanistan laga daalay maxaa looga daalay ayagii waa heshii waayeen dadkoodiina waa heshii waayeen dawlad wanaagna waa ka shaqeey waayeen maslaxadii dhan waxay ku soo koobeen waxay ayaga ka tanaadaan ayaga shakhsiyaadkooda iyo dadka eheladooda inay waxaan nepotism-ka la yiraahdo ama eexda iyo musuqmaasuq iyo ku takrifal awoodeed iyo waxaasoo dhan yaa looga daalay inay ka caafimaad qabaan waa arkeen marka wax isbedelaya inaysan jirin Mareykanka haddii si kasta iyo dhaqaale kasta ay ku bixiyaan dalkan maxaa iskala midnahay meelaha iskala midnahu sheegi doonay kamid tahay arrintaas midda labaad waxa waaye Mareykanka u soo jeesto arkay markii hore adduunka waan sheegnay markii dagaalkii Qabow dhamaaday adduunku wuxuu noqday unipolar hal awood adduunka ka taliso noqday oo Mareykanka ah hadda awood kala soo baxday oo la eg Mareykanka maxaa awoodaha lagu qiyaasay adduunka waxa lagu qiyaasaa afarta wuxuu soo sheegay ciidanka dhaqaalaha diblomaasiyadeeda intay laag tahay iyo tiknoolajiyadeeda afartaasba dawlad aan Mareykanka ka yareysanin iyo hadda soo kororto oo China la yiraahdo ama Shiinaha Mareykanka marka siyaasadooda arrimaha dibadda awal halista ugu weyn ee siyaasadooda arrimaha dibadda ama national defense policy-gooda markii la dejinayo
laga soo bilaabo 2011 ilaa 2018 waxay ahaan jirtay argagixisada hadda waa laga dejiyay waxa loo bedelay inay tahay Shiinaha wax qarsan ma waa dokumentiyo qoran waaye oo public ah marka Shiina hadda waxay u arkaa inay halista xaggooda ay kaga imaanayso ayaga Mareykanka marka energy-goodii dhaqaalahoodii iyo hantidoodii iyo diblomaasiyadoodii iyo ciidankoodii hadda ka bacdi waxay rabaan inay loolankaas ay ku jihayaan waxaa jirta awood aan aad u xoog badnayn oo Ruushka ah laakiin ku filan wax la yiraahdo disruption inay Mareykanka ay dhibaan oo carqaladeeyaan masaalixdiisa meesha ku arkaanba China oo kale ma aha oo awood taasoo kale Ruushka ma laha Soviyetka waagi oo ahaa waa laga yaabaa laakiin hadda awood intaas la eg ma laha Ruushka laakiin wuxuu ku filan yahay qas iyo Mareykanka inuu dhibo iyo inuu jaha wareeriyo labadaas iyo hadda Mareykanka waxay u noqotay mudnaantii waxa kale oo soo baxay waxa la yiraahdo pandemiga cudurradan faafaya oo halista ah oo ka imaanaya biologicalka waa biological warfare waa dagaal hadda waxa la isku haystaa COVID-19 viruskan ma dabiici ah mise waxa laga keenay laboratory laga keenay Shiinaha waa lagu haystaa inay laboratory ka keeneen doodaas wali dood la dhameeyay ma aha marka waxaa jiro virusyo labska laga soo sameey karo adduunka dadka lagu baabi'i karo waa jiraan marka pandemigaas hadda Mareykanka way la wareereen Soomaaliya say u maamuli lahaayeen ama u maray lahaayeen cudurkaas dib culays ka soo wajahay cuduradaas waa kamid waxa kale kamid ah cyber threat wax la yiraahdo hadda adduunkii wax walba waxay ku xirmeen information technology ku wada xiran yihiin nolosha dhan taasay ku xirantay biyaha korontada dhismayaasha kaabayaasha dhaqaale garoomada diyaaradaha wax kasta oo nolosha bini aadanka isbitaalada caafimaadka waxbarashada systemka technology-da ay ku xiran yihiin marka haddii marka la sameeyo xataa dagaalkii hadda warfare-kii hubkii waa weynaay oo taangiyadii iyo diyaarad wixii waa laga guuraa drones wax la yiraahdo iyo technology hadda loo wada guuraa technology-da marka maxaa sameysmaya cyber attack wax la yiraahdo way sahlantahay haddii la soo dhax galo sida computerkaaga ay u sahlantahay in loo soo dhax galo ya technology-da bangiyada waxa dhan technology ku dhisan yahay hadda marka technology-da dagaalkeedana waa arrin kale hadda Mareykanka oo rabo inuu u jeesto xaggeeda maxaa laga jeesanayaa marka dagaalkii ahaa war on terror la dagaalanka argagixisada ee Mareykanka rabaan inay ka jeestaan labadaasba Afghanistan marka in laga laabto ay timid ma laga yaabaa inay najaxdo Taliban ila ma aha aniga qiyaasteeda inay ku guuleysan karto mujaahidiintii Ruushka jabiyay wax weyn ay dhaami doonto ilamaha sababtoo laba arrin saddex arrin ugu sabab ah saas leeyahay midda koowaad waxa waaye in Mareykanka dhaqaalihii uu ka jarto Afghanistan la sii jiray hadda bangiga dhexe ee Afghanistan 9.5 billion dollar oo ku jirta Mareykanka hadda waa freeze gareey waa xiray ku dhawaad lacag 400 iyo intaasoo milyan ahayd oo ay bixi jireen wadamada galbeedka isku jireen waa laga xirtay Afghanistan oo hadda lama siinayo waxa kale oo 460 milyan ahayd waxa kale oo jira in 4 bilyan oo ciidanka Afghanistan la sii jireen ay cisho doonaan oo aan la siinayn ayadana markii la isku dardaro 75% Afghanistan waxa gala galbeedka bixi jiray wuxuudi dhan inay cishtaan ay rabaan Taliban marka aad dagaalamaysid muqaawamad tahay ama aad dagaal ku jirto way sahlan tahay dadka inaad ku midayso dagaalka laakiin markii power iyo awood la helay dhaqaale way ma sahlana inaad dadka ku wada maamusho qabiilo badan oo taageeray ayaa jira Taliban oo ayaga naftooda taageeradooda si ay u helaan indhaha ay ka laabteen dhaqaalaha Afghanistan meelaha ugu badan oo ka soo galo waxa kamid ah waxyaalaha la yiraahdo xashiishka oo ay beertaan marka dad badan oo taageero u ahaa ay qabaa'il taageero u ah oo dhan oo dhaqaalahaas ku tiirsan ayaga hadda Afghanistan ayaga Taliban inay iswey doonaan iyo haddii ay mamnuucaan waaye daraagiskaas ka yimaada beeraha xashiishka dhibaato uga imaan doonto iyo maxaa kale waxa soo dhakasii ayadana lamid oo ka daran ama halis ah Afghanistan waa wadan dawladaha adduunka ugu weyn ee isku haystaan waaye oo waxa isku haystay waxa daris la China Pakistan Hindiya Ruushka Iran iyo Turkiga daris degdega ma aha laakiin qaarkoodna daris si indirect u leeyihiin intaasba waxay taageeraan kooxo kala duwan oo Afghanistan leeyihiin kala taageeraan Hindiya kale Tajik taageeraan Pakistan Bashtuga kuwan Taliban ay taageeraan ayaga sameeyaba
إيران قراء يرى حارتين يرادوا شيعة تاجران إنك سي دولة complicated أو بدن ونسهلنين أو أنت بقى هذا كور وحنا قريبوه وقري سفيرك إنجليز كنينك أهاجر كابول وحالي كيبلس from كابول اللي هذا دولة هاس مركان لما عامله إنه قد كبدنا دحير دولة إيران هي صوته intelligence كذا طالبان وتاجرها يصيرون كذا طالبان تاجرها حرس الجمهوري إن ممكن اللي يرادوا إنه وحي تاجرها يعني كوحدة الشيعة أو كوح أو قبل إنها يستوى الدجن وزارة أرماء دبده وحي لشقينا ISF International Security Force كمريكا وجايمينها لشقينا مركا صدح جهات لك لما عامله يساوي مركا إيران تكتو أو صدح قولك على تاجرسن تركيا ده قلوا أزبك اللي هذا أصل كودي تركيا هنا تاجران أيضا مركا وودن مركا روشكا جايناها أنا وحيد أحمر عن باكستان وأيهين ألاينس سواء مركا أفهمتان آسيا ده كونفورت آسيا دولتها اسكوهايو باكستان وحالة جيرو شينها روشكا وحو تاجرسين هاي هندية اسكو لنعيهين iyo Mareykanka xataa India isku dhinacayeen marka waa dawlado waaweyn oo quwado shisheeye ah oo iswada haya ay ku hareeraysan yihiin taasna marka waxay ka dhigaysaa marka Taliban dadka ka soo horjeedo dhanna dawladahaas u ba taageeri doona si u kala jiraan oo kala jiri doona marka ayada nafteeda waxa la yiraahdaa governance-ga in wax la xukumo uma sahlanaa doonto ayada nafteeda culaysa xaggaas ka soo wajihi doono maxaan anaga isaga midnahay ayaga oo on Afghanistan ولا من ده أنا قاعد هالس نقول نقكره وهنقول نقكره إن لقد علي ده كان إليت كسياسة ده أما واحد اللي الأخبار السياسية أما هو جان كسياسة ده اسكو سووا ذكوب إن أدوك هذا أو فتيك واحد اللي أو دال لقيت جو سيد أفغانستان أو كله وهذا وحن مرينا عيدا كأجنبي قال لو كنت تدودي إمادين وأسد حلوات كن أدوك هالبليون وكون بحياة سنتك هل بليون humanitarian development ku baxda Soomaaliya marka wax ka soo naasa cadaanayna ma jiraan oo dawlad wanaag Soomaali xageeda ka soo socoto ma jirto oo anaga siyaasadana hadeertaan siyaasadteeda waxa waaye qofka wuxuu siyaasad ku helaa ama siyaasi ku yahay ama in lagu qadari ay tahay inuu siyaasi yahay inta sano kursi ku fadhiyo maaha inta sano xildhibaan ama senator soo noqday maaha inta sano baarlamaanka dhex joogay maaha inta sano oo wasiir noqday ma ah waa waxa uu xalliyo mushkilada waay deegaanada hadda Soomaalida inta badan al-shabaab haysta oo laga celcelis laga yahay siyaasiyiinteena oo dalka haystana uma jeedaan halistaas siyaasadii marka ma noqonin sida Afghanistan oo kale siyaasadeena ma noqonin siyaasad lagu tartamo in wax la qabto wax qabad oo hadda qof siyaasi inta soo istaago maanta dhigi kara waxaana qabtay ma jiro marka elitekeena ama nuqbadeena siyaasiga ay nuqbadooda isku hal waay jidkii ay jeexday nuqbadii siyaasiga dhalinyaradii iyo jiilka ku soo xigana wadadii un buu hayaa oo ahaa si degdeg ugu tanaada maaragtay aad magac ku sameeysaa sad baarlamaan ku gashaa hadda adig galayna aad baarlamaan u dhisataa yani wax oo dhab ah oo taxadiyaadka ama caqabadaha wajahaya ma jirto heer aan gaarnay hadda koor maraan sheegay in aan maaragtay kaniinigan pain killer ka qofka markuu xanuun ka bato kaniini pain killer oo cuna ama dhalinyaradan dhibaataysan maaragtay nolosha u suuro gal inay ku najaxaan waa kuwa jidadka koolada ku dhuuqa ama drugs ku cada intaasay rabaan xanuunka inay ismoogeysiiyaan annaga markii si aan xanuunka isku moogeysiino oo challengeska ama taxadiyaadka ama caqabadaha hor yaala si aan indhaha uga qarsano waxaan bilaabaynaa inaan waxyaalo oo dhaldhalaal oo korkore inaan ku mashquulno ayadoo magaaladii aad aragtiin biyaha dhex yaala si u dayacantahay jidadkeeda security-ga hadda laga yaabo hotelka marka imaanaysa inay saacad in ku qaadatay meel la mara aysan jirin yaa afar sar oo quruxsan inta la sawir Facebook la geeyay ma sha Allah xamar waa kacday yaa saasa la rabaa in lagu wada joogo marka waxaan hoose dhibaatadan qof inay u degta rabto midka madaxda laga bilaabay midka shacabkaaba in saas marsiyaas iyo qurquraxaas iyo dhaanteedkaas lagu wada joogal rabaa marka taas waxay keenaysaa marka in laga quusto dadka elite-ka ee nuqbada siyaasadeed in laga quustay ay keenaysaa waxaa kaloo iskala midnahay in maaragtay dagaalkii ku wajahnaa war on terrorka oo awal daraadiisba anaga noo ku yimid gurmadkiisa hadduu meesha ka baxo
in ay noqonayso adiga iyo dadka isaysiin is arka saasay noqonaysaa hadda Mele Zanaawi markuu kusoo duulay Ethiopia markuu kusoo duushay Soomaaliya 2006kii waxa loogu ogolaaday inay kusoo duusho Soomaaliya waxay ahayd sabab la xiriirta war on terror Mareykanka markii waa lagu maalayay dagaalka la dagaalanka argixisada waxay ahayd wax lagu maalo oo dawladaha gobolkan ha ahaato ama adduunka waxay Mareykanka ku maalaan ahayd dagaalkii waxaan ku jirnaa argixisaan ka haynaa lahayd Mareykanka waxa lacagta looga qaaday dhaqaalaha looga qaaday abuse oo sameeyay indhaha looga laaba waxa soo dhan waxay ku saleysnaayeen in dagaalka la dagaalanka argixisada daraadeed Mareykankana sidii u dhacdaba 11 September asaga naftiisa as dawlad ahaan wax kasta oo asaga wuxuu u qaabeeyay la dagaal argaxiso haday tahay IDC loo sameeyay haday tahay bangiga hadii aad bangi furinaysa Mareykanka dhexdiisa hadaad qaxootito soo gashay Mareykanka security-ga hay'adaha nabadgelyada dhan sida loo dhisaan gareeyay safarka wax walba oo Mareykan dadka Mareykanka waxa lagu xiriiriyay la dagaalanka argixisada lagu xiriiriyay qaabkaas aaba loo dhisaan gareeyay hatta dhismayaasha wax kasta waxa loo dhisaan gareeyay la dagaalan argixiso marka dawladihiina marka taasaa lagu baadayo marka dawlad kasta oo dhaqaale ka rabta ama taageero ka rabta argixisada la dagaalayna hadii marka Mareykanka oo priority-giisa ama mudnaantiisa ka jeediyo dawladihii ku noolaa la dagaalanka argixisada meeshaas waa ka baxayaan dhabta marka in la iswajaho yaa imaanaysa see marka dhabta ku wajahi karnaa oo kooxahan argixisada ah oo horarka ah oo dadkeeni maalin kasta 1500 300 jiid ku leenahay ay ku qabsan lahayn dalkeena oo nolosha yarta hadda abuurantay oo soo kabashada leh aysan u baabi'in waa ina anaga siiri dhab ina ahaano waa ina u aragnaa dawladnimada iyo siyaasadda inay tahay wax serious ah wax dhab ah oo dhalateed ahayn wax lagu macaasho ama magac lagu sameeyo ama meel lagu joogo ama fagaarayaal lagu imaado inaysan ahayn oo ay tahay matter death and life nolol iyo dhimasho inay u dhaxayso inay tahay wax igu sawir ah iyo xagee aniga laga sheegay inaysan ahayn wax oo dhalanteedaho dhalinyarada ay daba socoto jiilka soo socda kuwii horena ay ku dhex fashilmeen oo geed biyo ku dhex qalalay aysan noqonin serious si dhab ah mu wada hadli karnaa hadaan ganacsato leenahay odayaal leenahay haween leenahay dhalinyaro leenahay siyaasi leenahay halista nagu soo socoto ma wada arki karnaa misal mar sidii diyaaradihii arkayseen Afghanistan dhayaa looga dhiganaa la wada raaci doona oo dadka argixisada sababtoo argixisada marna ma ku turayso nin kon qofoodo dhalinyaro oo innocent ka dilay hal maalin oo xataa wax yar oo dareen aan lahayn ama 100 ama 80 maalin ka is agdhigay oo qarax ka shaqeynaa haddii ku qabsadana waa ka sii dareen marka halista nagu soo socoto ma arki karnaa dadkeena elite-ka ama nuqbada siyaasiga hadii arki weysid annaga ma tusi karnaa dadka shacabka ma tusi karaan indhahana ma kala qaadi karaan oo ma dhigi karaan mise waxa lagu mashquulsan yahay hadda doorashan ku jirna ayadana waxa lagu mashquulsan yahay baarlamaanka meeqa iga baxe meeqaan hela meeqa iga soo gashay meeqa aan heli doonaa aniga intee ka dalaalaa intee ka sameeya waxa dhanba waxaan ka dhignay siyaasadii oo nolosha dhabta ahayd ku xirneeda waxaan ka dhignay wax laga beec mushtaro adduunka markuu saas ku fiiriyo marka oo aragto inaad rotan tahay waxaan wax qurmay ay tahay waxaaga ayara laga furanaya hal subaxa waxa lagu baraarujinaa oo laga tagaa lagu leeyahay cid xataa kuusha ashraf gaani cid u sheegtay mal in laga tagay asoo madaxweynaha ku hayo arkay in uu dhil korkiisa Taliban ay ku galeen Mareykanka ay ku galeen marka intaas waa aan ku soo gabagabeynaa wixii kala su'aalaha iyo iska shaka u deynaa ma santii